shirkadda Instagram ayaa waxa ay dadka da'dooda ka been sheega ay dhowaan la sheegay in ay si lama filaan ah ay ku aqoonsan doonaan. Shirkadda Instagram ayaa qorsheynaysa qaabab ay da'yartu u xaqiijinayaan da'dooda si waafaqsan shuruucda bartan oo ay leedahay Meta ayaa tijaabinaysa muuqaalada la iska duubo oo lagu sameynayo falanqeyn da'da ah. Dadka isticmaala Instagram qaarkood ayaa isku daya in ay ka been sheegaan sharciga bartan ee ah in qofku ka weyn yahay 13 sano iyagoo iska dhigaya kuwa ka weyn 18. balse dhalinyarada Mareykanka ayaa loo soo bandhigi doonaa 3 hab oo ay da'doodu ay ku xaqiijiyaan inay barta geliyaan kaarkooda aqoonsiga in 3 qof oo qaangaar ah ay codsadaan ama ay ka codsadaan inay u xaqiijiyaan in ay muuqaal iska duubaan. Meta ayaa sheegtay in ay rajeynayso qaabab cusub oo lagu xaqiijinayo in dhalinyarada ay raacaan shuruucda da'da ee u degsan Instagram. barta Instagram ayaa hore waxaa loogu cambaareeyay badqabka da'yarta iyo caruurta. Dhowr gobol oo ku yaala dalka Mareykanka ayaa sanadkii lasoo dhaafay baaritaan ku sameeyay Instagram sababo la xiriira waxa ay da'yartu ay kala kulmaan. waalidiinta dhalinyarada isticmaasha Instagram-ka ayaa horaantii bishani la siiyey qaabab dheeraad ah oo ay ula socdaan waxa ay caruurtoodu ay ka qabtaan shirkadda Instagram ama aaladda Instagram. waxay haatan awoodaan inay waqti xadidan u sameeyaan ayna eegaan waxa ay caruurtoodu ay ku wadaagaan bartaasi. meelaha la taaban doono amaba la iska eegi doono waxaa ka mid ah muuqaalada la iska duubo iyo xaqiijintoodii. muuqaalada la iska duubo ayaa noqday kuwo caan ah oo qaab xaqiijin ah waxaana isticmaala bangiyada iyo shirkado kale si qofka da'diisa loo xaqiijiyo. Instagram ayaa haatan isticmaala muuqaalada la iska duubo oo qofku ku xaqiijin karo da'diisa haddii uu akoonka ka xirmo. Meta ayaa heshiis la gashay barta xaqiijinta ee UK laga leeyahay ee Yoti, taas oo qofka wejigiisa ka garanaysa da'diisa. Yoti ayaa sheegtay in ay dadka si qarsoodi ah loo baarayo wejigooda iyo taariikhda da'dooda iyadoo aan xog kale laga rabin. Meta ayaa sheegtay in labada shirkadoodba ay tirtiri doonaan sawirka qofka kadib markii da'diisa la xaqiijiyo. Dr. Yasbel Gerard oo bara warbaahinta casriga ah iyo bulshada ka ah jaamacadda Sheffield ee UK ayaa sheegtay in habka cusub ee xaqiijinta da'da ee Instagram ay yihiin kuwa dheeraad ah oo ka baxsan in qofka la weydiiyo oo kaliya inuu meesha geliyo kaarkiisa aqoonsiga. balse waxay sidoo kale ay sheegtay in loo baahan yahay in la isweydiiyo sababta da'yartu ku kalifaysa markaa horeba inay sameysaan akoono ay isaga dhigayaan dad da-weyn. badankooda ayaa Instagram ka sheega in ay ka weyn yihiin 18 sano si aysan wax xuna u sameyn amaba u daawan wax xun, ayay tiri Dr. Gerard. inay qofka weyn isku diiwaangeliyaan waxay ka dhigaysaa in ay dareemaan ammaan sababtoo ah uma maleeyaan in la beegsan karo. shirkadda Instagram ayaa heshiiskaasi Yoti la saxiixatay waa shirkadda Meta waxaana lagu doonayaa in qofka da'diisa rasmiga la xaqiijiyo marka la joogo bartaasi Instagram.